بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديوهani waa kii afraad taxanihii talo tilmaan tusaale iyo toosin. maanta waxaan jecelahay inaan arrintii halkii kasii wadno ku saabsaneyd qabiilkay sida looga baxayo. waxaan inoo sheegay in sharcigeenu iyo waajibaadka ilaahayba inagoo fardiya uu ina faray ee aan qol ahaan waxba waajib oo layna saaray jirin. qof walbana naftiisa iyo magaranaysa lagula xisaabtamayo aakhiro iyo ifkaba wixii u galo iyo wixii u gudaba. ma dhacday taariikhdeena xilli qabyaaladu ay aada iyo aad yaana odhan way baaba'day laakiin aada iyo aad ay hoos ugu dhacday. annaga goobjoog baanu ka ahayn ragga iyagii ka baxay dugsiyada toddobaatanaadkii. waxaanu la kulannay xilli aan qabiilku aan waxba lagu helin. marka imtixaankii aan laga qaaday baanu ku meel maray dhammaantayo wixii meesha aanu la tagnay ee aanu iskuullada kala baxnay secondary-ga ayaanu ku shaqo gallay. qabiilna umaanaan baahan, waastana umaanaan baahan, faylna ismaanaan dabasidin. waxay ahayd inuu lagu taxgelinayo qofka bini aadanka fardinimadiisa. in badan oo laga sheekeynaya ma maqlaysid, sababtoo ah qoladii halkaa waxaa geysatay wanaagaasi waxa ahayn xumaan fara badan oo tii hore ka badan bay geysteen. xumaantii baa lagu ilaaway wixii ay wanaag hayeen. xumaantaasi oo ilaa imankayna daba socota oo inu ka kaban kari la-aan habeenagaga tageen. marka ma aha wax maaragtay dadka intiisa badan ay xusuustaan, laakiin wax fiican waxa yareeya xataa wanaagii qabta bini aadanka in ficil kasta oo qof kastoo xun haddii wax yaroo wanaagi layaad kaga faa'iidaysato ood kaga dayato xumaantiisana aad tuurto. laakiin runtii dadka aad bay uga dideen oo magaranaysa dee xumaantii laynagu sameeyey waxtaa soomaali o dhanna markii dambe gaadhay burburka imanka taagan mas-uuliyaddeeda iyagu ay leeyihiin baa keentay inaan waxba wanaago laga sheekayaa jirin. laba dhacdaan doonayaa inaan idinla wadaago. mid waxa weeye qabyaalada sideedaba markaan anagu aanaynu aqoonin maanaan laisweydiin jirin war wasiirkaas waa qoloma iyo d g-gaas waa qoloma. intaan shaqaynayay maskaxdeeda may soo gelin inteebaa reer hebel iyo inteebaa reer hebel. waxaan ku shaqaysan jirin waxay ahayd uun laba group baa markaas dareen ku jiray oo weliba kaftan u badnaa. dad la yidhaahdo somaliland oo imaka dee berigaa la odhan jiray reer waqooyi iyo reer koonfur ayaa kaftan badan oo xagga hadallada iyo waxyaa badan naga dhexeey. waxaan xusuustaa axmed xasan cawke iyo allah u naxariistay lamumbe ayaa waxay duubeen cajalado taariikhdii caladhuux iyo gabayadiisii iyo gabayadii magaranaysa salaan carabi iyo aduu gabayadii loodhan jiray guba ayay duubeen oo adasku aad u xiiseeyeen xilliyadaasi. waan la yaabanay anigu maaragtay dee wax hadalladan xataa la isleeyahay iyo reer kaleys taaban iyo dhafoor taabadka iyo waa diidanay. xilligaa waxaa ka dambeysay iskuulkan la yidhaha zidam ee lagu bartay dowladda shaqaalaheeda lagu tababeri jiray ayaa colos waxaa la helay franca in la diro cid si ay u dhamaystiraan digrigoodii maxaan ku dhahdaa management courskii ay wadeen. imtixaan baana laga qaaday. imtixaankii 6 qof baanu ku guuleysanay. 6 baa la diraayay. 6dii ku guuleystay waxaanu noqonay 5 reer somaliland iyo inan reer koonfur oo reer baydhaba. arrinkaasi wuxuu noqday arrin maxaan ku dhahdaa dareen lahaa oo dareen keenay dad koonfuriya inay xoogaa yara kacaan. annagu waxaan ahayn somaliland oo ka hooseysay somaliland arkayn. dareenkuna wuxuu jeeray uun koonfur iyo reer waqooyi. halkaas markay marayso ayaa
آدي آد وحا وقل شيء هردي سكولك وحا متاها دايركتور ومدحك علي خليف علي خليف ويراتش العاو مارت بريشر كيلوها هي وحضهم عينو امتحان كي يلدي بهاللوغو علي أرنكا واحد ديدي ديبارتمنت كان نيكي كمدحضها نجيستي أو شرف له وغير سومالي لانا oo aad iyo aad dadka maaragtay dhiiran ee xaqa ku dirka ahaa oo ah nin reer laascaanood ilaahay ha u naxariisto axmed seefle ayaa la mari waayay axmed seefle wuxuu qabsaday tiirkii xaq u qabsaday war maanta imtixaan baynu qaadnay nin faransiisa qaaday faransiis baa scholarship ka bixiyay laynaga aqbali maayo mari mayso dadka xuquuqdooda haddaynu tuusino kooraskaas uu baaba'aya سيتيسي بقى معرفة إنه كل حاجة كنت عجنت هاي هذا عدل بكحوب بدن تيسي بنقطتي سيدي بقى كتبنا إيه ما شعري مركزنا قدين كشيء وهذا بقى ترين كي يسووها وحنوهين شان إنن أو صدح أيسكويهين حافظ هوسي قوس هوسي تشيس هوسي عم يسكوهين يلا ونين أو maanta haddaan markaa ku eego aragtida maanta lagu eegayo jaraa'idku ka kacay waa sidee u dhici kartaa inay saddexdaan israacaan sidee u dhici kartaa waa garanaya daakilkeena laakiin mar xilligayagaasi waxaasi ma jirin waxaan la yidhaahdo beel dhexe iyo beelaha darafyada iyo magacyadani marka faraha badanayna hayaa ma jirin dad reer waqooyi iyo somaliland oo fikirkaa wata oo meeshay joogaanba magacaasi somaliland waxay isugu tara oo isku ilaaliya oo aan isku dulmin oo dulmiga iska celiya baan ahayn maanta haddaba aan idin sheegay shanteeda maxaan ku idhaahdaa reer somaliland saddex qoys hoosaan isku hayno magacyadooda markaan idin sheego waa garan kartaan waa aniga iyo cabdillaahi maxamuud cismaan cabdillaahi xoog يا علي جوهر عمر أسكر الله ونحرسته صدق ذا يضع وحسوه راعي عمر علي كورة ونفر الله سعوناضة يا سليمان والحد سليمان أحمد والحد وأنا في بورمان شنت يضع سوان وحين شنين أول على ورئيس ومالنا وميري جوجان بنسكو احترامه اسكو إيه مقارنة عرفت كذا هذا حتى فوق الدول هيدا بني آدم وأنا هاي لكن إنه وحوين لقد دحين واللي يقول إلا أي ما كجرنا يا يارونها dareenka noocaasa ayaa dadkay ku jiray baashan silsilada ah aan dhamaanayne adoonayso maalin baa kula kaftama wuxuu leeyahay waan rabta qolomaato markaas aan qoladeen ku sheegtaa qoladeedu way fara badan tahay kulliyo si maxaad uga jeedaa markii dambe aan faahfaahiyo waxaan ku sheegan karaa mar xagga saraan ku sheegan karaa in saacad ku sheegan karaa saacad muusoo sheegan karaa saacad soo baan uga dhaadhici karaa intaas oo qibrilo aniga 20 ka magacba waan tiriyaa markaas meel ay isku taagtaa horta baash ma jirto kulka waxa weeye sida kaliya maamul lagu heli karaa marka aad reer leedahay reer baan wax ku doonaya xag danta guud xag reerku ka soo gala marka leedahay magaalada iyada iskuul ha loo sameeyo iskuulka reerkiina galaya mise dadka deegaanka oo dhan baa wada galaya haddaad caafimaad ka cabanayso reerkiina ka cabanaya mise deegaanka oo dhan baa caafimaad ka cabanaya wixii la deegaamiyo intii isku interest-ka isku danay ay noqoto dad lobin sameynayo wax doonayo oo aragti leh waa xaqiiqda ay taagan waxaad maqlaysaa reer hebel baa shiro waxay ka shireen horumarinta reerka horumarinta waxay doonayaan caafimaad iyo maxaan ku idhaahdaa jidad wanaagsan iyo maxaan ku idhaahdaa danta guud bay ka hadlayaan dantii guud cid baa la wadaagto la leh marka waxa wanaagsan inaynu deegaano ku hadallo oo intii isku interest timaado war wixii reerka loo qabanayay xuquuqdii ilaahay ku waajibiyay qaraabada iyo tolkaaga inta badan waxay ka faa'iideysaa danta guud marka la ilaaliyo inta yare ma garanaysaa sida gaarka loo naas muujiyaa waxba ma tarayso ifkana waxba inayna ummadda horumar ma gaarsiinayso aakhirana dee xisaabteeda aad leedahay haddii aad ku tagrifasho maalka ummadda ka dhaxaysa fariintaasi waxay u socotaa mucaaridka waxay u socotaa muxaafidka waxay u socotaa bulshada Somaliland ma aha wax cid gaari leedahay xukuumaddu ma dhaqaajin karto
ilaa aynu inagu bulsho ahaan dareenkeeda la nimaadno sababtoo ah dee mucaaridkaa ka faa'iidayo siyaasiyiintu sidoodaba waa ishayaan marka wuxuu mid ka faa'iidayo ka kale ma jecla inuu ku dhaqaaqo cidda laakiin kaxayn karta ay isu keeni karta waa bulshada oo la timaada aragti ah waa dhaqankan aan bedelo qabyaaladii khaati baa laga joogaa nin walba wuu ka hadlayaa dee sida aynu ugu hadlayno aynu wadno oo aynu pressure ku saarno inagoo wada jira xukuumaddii iyo mucaaridkii aynu wax ka qaban laakiin eedda beenta ah maanta xukuumaddana samaysay dee politikan kalaba u samaynaya marka waxaynu u baahannahay gunta inaynu ka daweyno oo nabarka aan dusha laga dhayn marka aad iyo aad baan idiin salaamayaa sida fiican waliba cajiladii dhawata aad iyo aad baa dadkii magaranaysaa reactionka ka bixiyey way ka badnaayeen kuwii hore si xoogan idinku mahadnaqayaa laakiin waxaanu samayn doonaa programmo iyo doodo insha allah gudaha iyo dibaddaba ka dhaca iyo dad maxaan kartaa network aan wada samayno in wada xidhiidhno laakiin waa markaan dhowr jeer oo dambe aan idiin diyaar gareeyo hadallo ku saabsan waxyaabo ka muhiima oo aynu kaga baxayno dhaqan fara badan oo ina haysta oo u baahan wadajir oo u baahan xukuumad iyo mucaarid iyo muxaafid iyo maxaa waday dhaqameed inaanaan u kala tegin oo aynu kala soocno wixii dhaqanka ah ee reerku ah iyo wixii horumar iyo maxaan ku dhahdaa bulsho iyo dhalinyarada sidii shaqo loo gelin lahaa sida xuquuqdooda ka heli lahaayeen sida nin kastoo muwaadini uga maarmi ahaa inuu cid istaba sido maskaxdiisana uu ku xoreyn lahaa garaadkiisa ku xoreyn lahaa kartidiisa iyo daacadnimadiisa lagu qiimeyn lahaa taasi baynu ka shaqayn doonaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu